السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا walaalkiin Cabaas oo markale soo laabtay saaxiibayaal dhammaantiina waan salaamay. Salaam kadib asxaabta igu xirnaa intaasoo sano oo hal sano yaraana saa qiyaasayo una dhiirigelintooda daraadooda meeshan ay keenta maanta ayaa u mahadcelinaa. Saaxiibayaal ku mahadsantihiin adiga u soo wayna maanta soo laabto. Saaxiibayaal aad u mahadsantihiin. Salaan kadib ku dhamaan wixii ila socday oo serious-ka ila daawanayay weerarkii Titanic-ka iyo dilaaga shahaadinta. Saaxiibayaal yaraan noqda macnaha niyadjabka iyo qaabka nuguriga. horta waxaa jira waxyaabo badan oo qofka bini'aadamka saameyn ku noqon karto. Ana horta jaranka badanaa waan jeclaa inaan sii wado xataa ni soo gudbiyo xataa badanaa waan jeclaay oo muddadan hal sanada waxyaabo badan oo iskhilaafayo oo mashaakil caaliya iyo wuxuu ahaay waxbarasho iyo waxyaabo iska badan iskeeni waayeen saaxiib. marka janarka marka wax yar oo hakiyo oo wax yar macnaha wax yarna ma ahayn muddo hal sana ma yar wax yar ma ahan. marka saaxiibayaal taas waraagina haddana waxaan cadeeyaa janalka in uu soo socon doono oo hal sano dib u soo laabanayo oo macnaha ka kabsaneen xanuunkaas oo dhan. insha Allah janalka waa sii soconaya oo janal ma joogsanayo oo waana sii wadi doona weerarkii Titanic-ka iyo dilaaga shahaadinta iyo enemiga soo socdo waa sii wadi doona insha Allah. marka hore waxaa sabareys uu noqotay in uu youtuber oo khulaasaynayo Soomaaliya oo enemy khulaasaynayo inay soo baxeen maasha kaliya awoodi jira oo macnaha uu kaliya culays u ahayd laakiin maanta uu walaalo garab taagan mar walba enemy khulaasaynayo soo baxay maasha Allah waa wax lagu farxo inuu intaas ay dhacday maasha Allah. oo macnaha uu badanaa adduunkan oo macnaha laakiin enemy wax la aqoonin adduunkan oo la yaqaan Soomaalida dhahayaan wax kama aqaan dhifna dhahayaan yaqaan daawadaan oo dadka Soomaaliya la gambanayo la aqaan oo la gambada badanaa enemy ma kala daawanayo. dad badan in Soomaalida inay bartaan waa oo macnaha loo baahan yahay in enemy oo filmaanta kala ka duwan yahay filmaan gaar oo leeyahay enemy waxa xiiso badan leeyahay waana muhiim in enemy-yaasha la barto. marka sidaas daraaddeed anagu waxa soo baxna in enemy khulaasayno saas daraaddeed waa leeyahay wana waxa garab taagiin maantana waa kuwana dad oo Soomaali oo enemy khulaasaynayo soo baxeen maasha Allah. laakiinse hal wax qajiro oo khilaaf ah la yaab sabrays ugu noqotay waxa soo baxay youtuber aan arka macnaha la khulaasaynayo baasan dhima lahan khulaasay laakiinse macnaha u qaaday kofarka oo video mid kamid ah oo soo dhigay dilaaga shahaadinta kofarkiisa qaatay ma waxaas macquul ma ahayn ana waaba ku sabraysay ugu noqotay sidee ku dhacday oo saas ku sameeyay ninkaas. waxaas oo kala ma fiicno oo inuu qofka saas oo kala sameeyo wax laga xumaado okay taas oo kala wax haboon ma ahan. marka qofka ka khulaasay waa caadi oo waxa dhanka ka khulaasay waa maasha Allah. laakiinse ma ahan saas ina sameyso qof walba wuxuu leeyahay aragti gaar ah oo qaabkiisa u khulaasaynayo wax walba waa loo baahan yahay in qof walba inuu khulaasayo maasha Allah. inta kale laakiin waa sii wadi janalkiina janalka oo ujeedin waxa waaye magaciisa loo bedel Cabaas Simba oo noqday Simba eriga uu taagay yahay qof weyn oo macnaha qof xawaa qangaar ah fadadida oo Cabaas Simba u baxso saani sheegay janalka waxa waaye janal la balaarina oo dhan walba ku soconaa waa in xal raba dhan walba inuu ku socdo janalka sidoo kale inuu social media dhan walba oo ku socdo sida TikTok-ga oo Telegram-ka iyo meelo badan Facebook kamid ah meel walba inuu waxa janalka socdo waaye oo wax walba inuu ku socdo insha Allah waan sii wadayna waan soo soconaynaa. haddana waxaan rabnaa in xalaqo kamid ah oo bedelay oo weerarkii Titanic-ka raba inuu soo dhigo xalaqo kamid ah laakiinse dadka ummadana waxa arkayna xiise aad u hayaan dilaaga shahaadinta xalaqo kamid ah in arkaan saas daraaddeed xalaqadana haduu hordhac ahaan ugu siinayo kaliya hordhac ahaan oo inta ka badana soo socota ka badan insha Allah wana wax hordhac ahaan kaliya. xalaqadana waxa rabaa in ugu gudontaan reer gelin ahaan laakiinse xalaqadan waxa u baahanahay in aragti aan u qaadatin wax xalaqada labaad insha Allah xalaqadan aad ugu raaxaysta oo si fiican u dhigeysada waxaan rabaa in si fiican wax walba in u faahfaantiin oo ma warra wax oo sid boosiisa oo uu sharxo oo wax ka fahmaysiin oo dhan walba ka socdo inaad si haboon u fahantiin waa muhiim ah sidaas aan ugu talagalay oo insha Allah waa fahmaysiin insha Allah. haddana xalaqadiina si degan u fiirsada oo jawi degan fadhiisid oo meel fiican ku qaadanaysid like and subscribe kan hana iloobin saaxiibayaal ana sinidin.俺たちがやることはただ一つ戦えsaaxiibayaal xaqeedina hore marka dib ugu laabano
waxaa ogaanayna in yar lagu magacaabo Tanjiro oo dhul baraf ku noolaa dhulkaas oo baraf ku noolaa asiga iyo qoyskiisa si faraxsan iskaga noolaayeen laakiinse maalin maalmaadkeedu waxaa ina dhacday oo asiga oo intuu shaqada ku maqnaa oo soo laabanayay habeenkii inuu jidku soo dhaxay jidka markuu soo dhaxay subaxinta soo baxay oo uu imaaday familkiisa dhammaantooda loo baabi'iyeen laakiinse qofka keli familkiisa ka soo haray ee ahayd walaashiisa asiga ka yareed Nezuko lagu magacaabo Tanjiro walaashiisa intuu jidka ugu jirayso u soo daweyn lahaa wuxuu la kulmanin ninkaasna wuxuu dareemay inuu Nezuko sheedaan ay noqotay markaas wuxuu dareemay inuu Nezuko dilo oo ka kasay laakiinse gabadha markii uu ninkaas oo ka dalbaday Tanjiro inuu u dhaafo har gabadhi kaliya qoyskiisa u dhaafay in ay tahay ninkan oo saas ku aqoonsaday oo u dhaafay walaashiisa kadibna wuxuu u tilmaamay nin lagu magacaabo Sekunjo Orokodaki ninkaasna ku dhool yahay buu uu yaqaan Saigiri waraas waa inuu tagaa Tanjiro si uu ninkaas uga kulmo xalaqadiina ma asid nuu ekeeto hadda xalaqadii labaad waxay noo bilaabmay Tanjiro walaashiisa u raadinaya silad oo ku qarin lahaa si uu qorxada uu soo gaaray walaashiisa Tanjiro markuu walaashiisa uu salada u helo oo soo baxo wuxuu ka baryaa inuu salada eegasho si uu maalin u socdaan laakiin wuxuu dareemaa in Nezuko in marna ay siirey karto marna ay suweynay karto Nezuko in salada tagisha siireyna Tanjiro uu ku farxataas Tanjiro markuu soo baxo oo habeenka oo soo baxo asiga uu walaashiisa soo baxan wuxuu ku ma sheedaankaas oo meel uu macbad meel wax oo macnaha ku jiro oo ninka meeshaas ka tahay oo macbad ka ahaa in uu ninkaas oo macnaha uu cunayo ninkaas sheedaanka markaas wuxuu fiirinaa labadan qof differencega u dhaxeeya oo mid sheedaan qof shiir sheedaan oo u raay mid waxa soo qof bini aadam markaas sheedaanka wuxuu ku boodaa Tanjiro markuu ku boodo Tanjiro wuxuu iska ilaa xirfadaysan masaarta oo sheedaanka dhunta ku jira sheedaanka markuu dhunta u jiro sheedaanka wuxuu tusaa in meeshii selskii dhunta dhaawac ku soo gaarsiin Tanjiro in reeysa karto meeshii uu selska ku imaanayo Tanjiro taasna wuu la yaabaa halka Nezuko uu dhiigi iyo wixii qof bini aadam sheedaanka uu cunayo oo u fakanayso waliba u raayo oo xakami karin si iska celiso sababtoo dhiigeeda waxa ku jira dhiig sheedaan oo u baahan yahay dhiig bini aadam si ay cunto laakiin Nezuko way soo xakameynay markay soo xakameeyso soo orday walaalkiisa u difaacdo sheedaankii hal mar madaxa dhunta u haatinaysa darbo xooga sheedaankana dhuntana ka haadayso halkaas uu dhacay laakiin waxaan ku sheegay sheedaanka iyo jirkiisa markay kala xadaan in uu waxay ahayd markaas uu dhinto sheedaanka dhuntiisa waxa kala sigteen iyo jirkiisa laakiin taas ma ahan uu sheedaanka markaas dhuntiisa jirkiisa asaa kala sikiyay saa jirkiisa ay ahayd in uu kala faqto sheedaanka markaas wuxuu leeyahay maxaa la yaabka in waxa maatan suuga la yaabana waxay tahay sheedaan iyo qof bini aadam si ay u socdaan waa wax la yaabo sababtoo sheedaan iyo bini aadam macquul ma inay soo socdaan Nezuko iyo Tanjiro wuxuu soo socdaan wili walaashiisa laakiin sheedaanka waa la yaabay halka jirka sheedaanka lahaa oo ku soo booday Nezuko madaxa sheedaanka uu sameeyay Tanjiro inuu ku soo boodo Tanjiro soo iska fujiyo wuxuu baahan walaashiisa oo caawiyo madaxa iska fujiyo madaxa jeesto u gelina madaxiisa dhagax oo kale waa Tanjiro sheedaanka intuu wareero madaxa intuu sasta u tuuro macnaha geedka iyo masaarta isku dhijinaa madaxina maas ku dhigaa Nezuko jirka kala qaybta kale ee la dagaalamay Tanjiro intuu raadiyo oo soo muddo raadinayo oo arka goorta dhinaceeda meesha ay kasii dhigayaan Nezuko iyo sheedaankii wax walba u sameynaa Tanjiro walaashiisa aad u jecel yahay oo isku farxiyo macna oo asiga jirka sheedaanka isla haadayaan laakiinse jirka sheedaanka ayaa meesha ku dhacayo oo goorta ka dhacayo halka Tanjiro ee walaashiisa caawinayso ay qabanayso Tanjiro markaas dib wuxuu ugu laabanayaa in uu sheedaanka u dhameystiro oo madaxa uu ka dilo laakiin Tanjiro waxa ka badinayso ka guuleysanaysa naxariistiisa zaa'idka oo asiga qabo Tanjiro ma awoodayo in uu sheedaanka madaxa ka dilo oo dhameystiro markaas nina gadaashiis imaanayo oo Tanjiro markaas toos u taabto oo Tanjiro soo fiirinayo Tanjiro ninkaas wuxuu leeyahay waa inaan uu sheedaankan aadishaa laakiin Tanjiro wuxuu weydiinaa qaab nuucay u dilaa sheedaanka waxaa leeyahay maskaxdaada adeegso oo si fiican u fikir si sheedaankan u disho waa inaad fikirtaa naxariista kugu jirta qalbiga kugu jirta maxay tahay waa inaad sheedaankan aadishaa waxba asmaysaa Tanjiro markaas loo si fiican u fikiro oo wuxuu dareemaa uu sheedaanka in maskaxda bidil laga geli karo oo maskaxdiisa inay kala daadato loo baahan yahay markaas maskaxda wuxuu soo fikira dhagax soo qabsanaa dhagaxaas in uu madax u geliyo uu madax kala daadiyo loo baahan yahay laakiinse ninkan wuxuu fiirinaa Tanjiro riixadiisa iyo ana urka soo baxayo in wiilka wiil qaabkiisa uu daacad u yahay sababtoo ah ku safiyanka waxay dareemaan doona ahsaas ku dareemaan urkii neesashada ay qaadanayaan inay ka dareemaan oo qaabka ay tahay iyo waxay tahay la garanayo laakiin saas ay ugu xeebad ahaan u yeestaan ku dareemaan wuxuu dareemaa wiilkan wiil oo daacad u yahay qalbigiisa uu fiican yahay oo macna sheedaan iyo waxa uu geli karin inuu dilo oo dili karo markaas ninka wuxuu leeyahay wiilkan uu fiican yahay qaab ahaantiisa laakiin si loo fiiriyo wiilka qalbigiisa uu wanaagsan yahay markaas wuxuu leeyahay giyu xalkan ma fiicna macnaha wiilkan ay soo dirta ma ahayn markaas taas waxay cadeynayaan inuu ninkan uu yahay tababarihii oo loo soo diray Tanjiro tababaro oo magaciisa loo yaqaan Sekunjo Orokodaki ninkan ayaa laga rabaa inuu Tanjiro tababaro oo tababarihii loo soo diray ninkan wali ma qaabilsan Tanjiro halka sheedaanka mirkiisa soo laabtay oo sheedaanka hurdada ka soo kacay laakiin Tanjiro sheedaanka u fakanayo mana awoodo sheedaanka
Tanjiro dhamaystiro dilo qoraxda ayaa ku soo baxayso shaydaankii qorax ku soo baxo sidaas ayuu ku tirmaa waayo qoraxda shaydaaninta way ka awood badan tahay 15 years na wadoo gaar shaydaaninta waa ku baaba'aan oo halis ku yihiin laakiinse dhibka ay tahay Nezuko maamaha ku sugan oo sidoo Nezuko qoraxda ma agtaagan tahay Tanjiro meerkeedu ku soo laabto oo Tanjiro geesaha fiiriyo oo inta ordo meesha qolka Yasuko fiiriyo waxa arkay Nezuko alxamdulillah inay la gambatay oo meel inay raasatay oo ku gambato halka Orokodaki macalinka Orokodaki oo dadkii oo shaydaanka cunay inta waday oo meel duugayo oo macnaha qubuurta u sameeyo agtooda meesha ay ku noolaan agtoodana qubuur u sameeyo oo ku duugayo Tanjiro marka uu maado oo ninka macalinkii Sakunji Orokodaki u dhahay adimii qof biyo oo isoo diray Tanjiro wuxuu leeyahay waa aniga magacayga waxa loo yaqaan Kamado Tanjiro Orokodaki markaas Tanjiro wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay walaashaada hadii qof bin aadan ay cunayso maxaa sameynay Tanjiro taasna surprise ay ku noqonay oo su'aal wuxuu ugu jawaabayaa Orokodaki markaas uu maado wuxuu ku sameynaa Tanjiro maxay kula tahay Tanjiro markaas wuxuu gelinayaa dharbaxsho si uu miirkiisa u soo laabto wuxuu leeyahay hadii adiga go'aankaaga aad u liitaa Tanjiro waayo hadii go'aankaaga hadii walaashaada qof bin aadan cunayso maxaa sameynay garameys wuxuu leeyahay ma ogtahay go'aan qaadashadaada dhibkay leedahay hadii go'aan qaadashadaada aad u liito in uu qof bin aadan naftiisa sababan karo inuu go'o walaashaada qof bin aadan hadii cunayso inay cunto ay rabto maxaa sameynay calaha hadda ku aragto walaashaada qof bin aadan ay cunayso waxaa laga rabaa inaad samayso waa inaad walaashaada nafteeda goysaa Nezuko waa inaad dishaa leeyahay ninkan Nezuko waa inaad nafteeda dhaafsisaa haddii ayadoo qof bin aadan cunaysa aragto go'aankaas kartida zaa'idka waa inaad qaadan kartaa Tanjiro go'aankaas ma qaadan karo hadduu uu arko walaashiisa qof bin aadan cunayso wuxuu leeyahay Orokodaki waxaasoo kale waa inaad ilaalisaa waxaasoo kale agtaada waa inaad ka dhicin waayo waa inaad ilaalisaa walaashaada qof uu dambiile aan lahayn oo waxna aan geysan in naftiisa dhaafiso waa inaad ka digtaadaa waxaasoo kale in wax walaashaada ayna sameeynin Tanjiro wuxuu leeyahay waayahay marda maqaladkaasoo kale uma laamanaayo laakiinse waa inaad arday iga dhigtaa oo maana ay tababartaa Orokodaki wuxuu leeyahay si ani kugu tababaro marka hore waa ina ku ogolaada arday aan ku ogolaada ani sababtoo qof aan ogolaanin tariin ma sii karo oo macnaha xirfadiisa ku bixin karo wuxuu leeyahay si aan ku kubciyo waa ina isoo dabracada oo meesha aniga kugu tababaro inuu geeyaa Orokodaki markaas Tanjiro wuxuu wadaa si uu soo tariin gareeyo oo soo tababaro laakiin inta jidka ku jiraan Tanjiro wuxuu arkaa Orokodaki inuu xawaarihiisa gaari karin Orokodaki waa nin oday laakiin oday xataa qaabkiisa oo Tanjiro u la yaaban yahay sidoo ninka oday uu ku yahay xawara uu yahay Orokodaki waa nin dilaaga shaadinta ka tirsanaa oo waagi hore ahaa oo Hashira marka horta muxuu yahay Hashira ni sheegayo Hashira horta gadaa ni sheega marka hore yani faahfaahinin Orokodaki markaas Tanjiro wuxuu wada xaafadiisa si uu soo tariin gareeyo laakiin jidka intuu ku jiro Tanjiro aad u daalaa oo odayga naba gaari karo odaygaana waa oday intaas soo tariin gareeya oo macnaha tababar weyn soo lahaa oo fadhiistay oo seef dilaaga shaadinta ka fadhiistay laakiin Tanjiro asig jidka ku jiro laakiin wuxuu damcaa in uu walaashiisa oo marka raaligelin u weydiisto Tanjiro wuxuu leeyahay raaligelin ka weydiina oo hawlba ku qabo way Nezuko oo waxa uu arabto ku sameeyay intaas oo sano oo isla joognay laakiin hadda balan waxa ka qaada in bin aadanimo ku soo celiyo bin aadanada ku soo celiyo waxa arabtana ku sameeyo waa balan nafteeda dhan ku huraa Tanjiro wuxuu cadeeyay walaashiisa inuu walba in naftiisa uu rabo meesha markay tagaan asi iyo Orokodaki xaafadda ay tagaan Tanjiro wuxuu leeyahay tariin kalaan uu egyahay alla hadii bana bilaabata biyo asgaari Orokodaki Nezuko wuxuu dhigaa qol oo hoos oo macnaha qorax aan soo gaareenin Nezuko markaas way jiiftaa oo way hurdaysaa hurdo oo macnaha oo zaa'ida oo macnaha aan kici karin iyo Nezuko mees ku jiifnaysaa Tanjiro markaas waxa la geenaa meel oo duur oo kala meeshaas oo duurka laga rabo inuu ku tirin gareeyo tababar fiican oo ku qaato laakiin Tanjiro meesha uu ku wareeraa oo asal meesha shirkeedii urkeeda dhibaysa asal xasaas uu leeyahay oo wax walba zaa'id ku urka wax walba zaa'id uu soo uray Tanjiro markaas waxa la leeyahay uu nadi meeshan waxa laga rabaa adoo soo baxdo waa ina uu buurta soo dhaaftaa oo dhankan uu soo baxdaa si aan soo moodid la leeyahay Tanjiro markaas waxa sabraas naqay Orokodaki soo halmar u baxay laakiin kadib wuxuu fahmaa in uu buuraan inuu moodo la rabo waxaan eriyaamo oo dhan Tanjiro inuu ka baxsado si uu dhanka kale uu soo baxo meesha Orokodaki ka soo baxay Tanjiro wuxuu leeyahay aniga waxaan sahal ii tahay urkan urinayo oo waxba ii fududeynayo sababtoo aniga dareema xasaas aan leeyahay marka saas uu moodo wuxuu dareema faqaq mid kamid ah dhagax wajiga u dhacaayo godna uu ku dhacay Tanjiro markaas wuxuu dareema meesha meel sahal inay lagu baxsan karin oo meel walba inuu faqaq badan u leeyahay oo godad badan iyo lis badan leedahay markaas Tanjiro wuxuu isweydiina soo u baxsi lahaa meeshan odayro usaka inta la gaarin koora Tanjiro waxa laga rabaa inuu meesha ka baxsado si uu taxanka Orokodaki uu guuleysto in meesha hadisteedu waxay tahay meesha oksijiinka aad u yar Tanjiro oksijiinka uu dhibaya sababtoo xasaasiyad uu leeyahay neefta oo badan oksijiinka oo qaadanaya badan Tanjiro wuxuu la saa'id ugu dareemo xasaasiyad ku leeyahay uu dhashay laakiin Tanjiro wuxuu isweydiina xasaaskaas oo dan uu faa'iido ugu leeyahay oo ku dareemi karo meel walba uu maanayso faqaaqda ama god ahaato ama dhagax uu maata ahaato ama alwaax dhinac uu maata ahaato halista meel walba dhankan ay ugu maanayso Tanjiro wuxuu fahmay Tanjiro soo u baxsanaa meeshan
wuxuu leeyahay walaashiisa ugu laaban lahaa oo garabkeeda u taagnaa lahaa waa inaan waxaan halistan u maraa si uu wax walba uu sameeyo walaasheeda dhiirigelinta Tanjiro oo galaysa waxay tahay in walaashiisa uu wax walba u sameeyo oo rabo haddii soo baahata ama sheedaha la kulmo ama uu tababartii u xumaa qaato Tanjiro wuxuu diyaar u yahay walaashiisa wax walba inuu sameeyo walaalna kan aan laga dhahaa Tanjiro wuxuu sameeynaa soo wax uu baxsan lahaa nafsistiisa suujiinkiisa adeegsanaa uu qaadana wuxuu fahmaa meel walba uu halista u maaneys uu fahmaa Tanjiro dambeeyay Tanjiro qoraxda markay soo baxdo fajirkii wuxuu kulmaa Orokodaki iyo walaashiisa Nezuko asoo daalan u dhig baxayo oo meesha uu kulmaa Orokodaki markaas wuxuu soo xasuusanaa message uu soo dhiibay Gyu Tomioka ninkii uu soo diray Tanjiro Gyu message-kiisa wuxuu ku leeyahay macna igra noqo waxaan ku soo diray yar familkiis aan la baabi'iyay doqonna wuxuu ku ahaa asoo macnaha gacantiisa hub oo ku wato aan soo weeraray أجر إحساس إيش شفت إنه يركن نقولها أوغارسيان شديد كوو فعلا سيدا كل واحد قيد جولاتي سقوف من آدم إنه أوغارسنين وحنا كذا البنا يركن إنه فعلا أوتوبرتو أوتوبر فعلا أنا سيسو قسم حكوا سوق رجيو توميوكا ما أنت سفاه توميوكا إنه رسبكت وين أيقات أنا أنقص أنا أتاجري لطحو أخوف نسكو إتانجرو بالبلاري معناها أمور فعلا بلارن أوسية وقت بلاري فداكنا wuxuu leeyahay ani hadda kabad ardigay waa tahay waan ku qiray tiliinimada aan ku qabanayna hadda kabad isku diyaari taaki tabar nooceeyo Tanjiro siina Nezuko ilaa goormay jiifay xaas oo dhan information waxa ku arki doona xalqada saddexaad insha Allah xaqana hada ka yeesho saaxiib like iyo subscribe kana iloobin Tanjiro oo tababarkii uu adkaa noloshiisa qaadanayo Nezuko hurdada aad ugu dheeraanayso ay soo kiciyayso xalqada soo socota la kulankii Sabito iyo Makumo